imaan doona ayuu aad uga digay. fitankaasi wuxuu nabigu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi inay imaanayaan fitan oo qofka taagan qofka fadhiya waa ka fiican yahay qofka taagan, qofka taaganina waa ka fiican yahay qofka socda, qofka socdana qofka ordahaya waa ka fiican yahay ama dadaalahayo oo socodka boobsiinaya ayaa imanaysa. man tasharrafa laha tastashrifu, qofkii u banbaxa way laacaysaa. faman wajada malja'an aw macaadan falyacud bih, qofkii hela meel uu kaga gabado baasha ka gabado, yuuna isku dhigin. baadiruu bilacmaali asaalixati fitanan ka qitaci llayli lmudlim, war u degdegaaliya acmaasha wanaagsan intaan baladaasi imaanin. yusbixu rajulu mu'minan wa yumsi kaafiran, qofku wuxuu ku waabariisanayaa isagoo muslim ah, wuxuu ku galabaysanayaa isagoo gaal ah. wa yumsi mu'minan wa yusbixu kaafiran, wuxuu ku galabaysanayaa isagoo muslim ah, waabarkiina wuxuu noqonayaa gaal. xadiiskaas waxaa fasiray xasan albasri oo taabici ah, kama fi sunan tirmidi bisanadin saxiix. wuxuu ku fasiray wuxuu ku waabariisanayaa muxariman lidami akhihi wa maalihi wa cirdihi, isagoo xarimahayo ay ka xaaraan tahay dhiigga walaalkiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa. wa yumsi mustaxillan lidamihi wa maalihi wa cirdihi, wuxuu ku waabariisanayaa ku galabaysanayaa isagoo intii shalay xaaraanta ka ahayd maanta xalaalo ah. walcaks sida kalena waa sax. marka yani waxaad arkaysaa in fitantaasi ay waqtigeedii joogto. wuxuu sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayh in uu badanayo harjigu. markii la weydiiyena wuxuu yihi alqatl waa dilku inuu badanayo, lisdilo inuu badanayo. oo xataa yidhaahdo qofka war kan la dilay wax loo dilay garan mayo, kan wax dilayna muxuu u dilay garan mayo. magarata halkaas ayaa arrinku gaarahayaayo waxa weeye arrin dhibaato ah ayaa imanaya aakhiru zamanka. waxaa ka mid ah waxyaalaha loo baahan yahay markii fitantu saa u jirto oo dhibaatadu saa u jirto oo waqtigu saa yahay, waxaa loo baahan yahay aqwaasha qofka soo gaaraya inuu ka fiirsado, tathabbut min alakhbaar. macnaa sideedaba jarxiga iyo tacdiilka culummadu ay suubisay ma imaanin ilaa fitnadu ay timid. markii fitnadu timid baa waxaa la yidhi sammuu lana rijaalakum, noo sheegay yaa waxaan kuu sheegay. macnaa qofku wax alla wuxuu maqlay inuu sheego khalad weeye. in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu, waa in laga fiirsadaa, waa in la tatabbutaa, waa in la ogaadaa masdarka kan sax ma yahay mise sax ma ahan. waxa aad u badan awqaadda fitantu jirto aqwaal aan laa azimmata laha walaa khatim, hoggaan aan lahayn, iska ordaysa. waxaan maqli jiray beentu waa saddexoo mar cusub baa la yidhaahdaa cidi kuguma taqaano kulli waa dadku waa ku dhegaystaan. marna waxaa la yidhahdaa calaqsi oo qolana waa ku baratay oo yurbay ku tiraahdaa, qolana waa kaa dhegaysataa. cishay marshay marka la isu kaasheego la war waa kii hebel ahaayo beenlowga ah. yani waxa weeye hadda cida ka hebaysan mayso inay iska hadasho. kafaa bilmar'i ithman an yuxadditha bikulli ma samic, wax alla wuxuu maqlo qofka hadduu sheego dee beenlowgu noqonaya. saa darteed akhbaartan tirada badan iyo warnaqlinta tirada badan oo zamanil fitan ay leeyihiin ayada laftigeeda in la iska daayo wey, oo la cabsado oo warka raadintiisa tirada badan la yareeyo. oo wax alla wixii laguu sheegaa aad ogaatid ma saxda ma sax maahan. laakiin wallahi nin fiican baa ii sheegayoo waxaan u marayaa inay sax yihiin. maaha saa maaha. ninka ayuu kuurka ka soo wariyey, kaaskana ayuu ka soo wariyey. ma garatay waxaa arkaysaa war markii la sheego meel ku intooda la waayay. saa darteed waxaa loo baahan yahay zamankaas dhibka badan, aqwaashuna tiro badan tahay, in warka la xakameeyo oo la yareeyo. waxaa la socda faalada laftigeeda iyo hadalka. qofku hadduu hadalkiisu ka furan yahay oo wuxuu rabo oran karo, wuxuu rabo sheegi karo, oo uunan ka cabsanayn kelmadda ka soo